waagii ay hal qof ahaayeen noloshu aad ayay u qurxoonayd. dabeecadaha iska soo horjeeda ee lagu uumay sharka iyo khayrka lagu kulmiyey lama kala sooci karin, oo kibriidka ayaa la garbadkii lagu xoqi lahaa. kolkii laba laga dhigay ee kalgacaylkii ugu horreeyey dunida aadanaha ka dhaca uu xasilooni iyo naxariis ku ekaaday, waxaa isna gacantiisii dhiganayay aafada ugu weynay ilaa maanta aadanaha ka dhigta waraabayaal. ilmihii ugu horreeyey oo ahaa taranka aadan iyo aabbayaasha aadanaha maanta nool ayaa ahaa mirihii uu dhalay jacaylkaasi. shaki kuma jiro in noloshoodu ay ahayd bilowga dagaalka wanaagga iyo xumaanta oo uurka ka soo raacay. haddii aanay shalay jirin cid aadan iyo xaawo u dhiganta oo ay nolosha kula loolamaan, maanta dhashoodii ayaa isu jeedda. qof walba noloshaa cusub ee uu yimi ayuu wejiyadeeda ka mida fooda saaray. waxay mid kale uga dhigan tahay guuldarradiisa. halganka uu ruux walba la galay kan kale ee halka ka bilowday ayaa soo shaac saaray dabeecadaha isburinaya insaanka. runtu waxay tahay mar kastoo uu qofku la xarbiyo nolosha, wuxuu kas ama kama ula diriraa dabeecadaha naftiisa. haddii uu samaanta u weecdo, sharkii ayay is haystaan. haddii xumida u weecdana, samaantiisa ayay isku liqdaaran yihiin. kala dhib yar oo kala duwan sifooyinkaasi, waxaanse shaki ku jirin in jacaylka guusha uu yahay waxa ugu weynee shidaaliya cudurka aan weli laga gubin dadka ee la yidhaahdo damaca. qabyaaladda, kursi u dirarka iyo maaldhicidduba waa natiijada damaca. dhiiggii ugu horreeyey ee ilmo aadan iska daadiyaan damac ayuu ka dhashay. jacaylka guusha iyo nacaybka guuldarrada ayaa shidaal u ahayd. isfahamwaaga ka dhex dhasha dad wax wada leh waxaa alaaba dhaliya hunguriweynida uu midkood ku doonayo inuu kan kale ka qadiyo wixii uu la lahaa. diidmaduu ruuxa kale ka muujiyay in cadkiisii laga sadbursada ayaa iyana keentay ismarin waa. noocyadiisa qaar ka mida loo taag waayo, xalkiisana lagu wareero. damuucu waa cudur ay tahay in laga dhex baaro dhibaato kasta oo xal loo raadinayo. nolosha aadanaha, dhargiwaaga iyo marooqsiga saami aanay lahayni waa mataana aan si sahlan loo kala reebi karin. haddii cudurku qaan gaadho, dawana uu waayo, bulshadana aan laga tallaalin, wuxuu weligii ahaadaa halis dul hoganaysa jiritaanka iyo nolosha bulshada. waxay dhibtiisu gaartaa in qof walba ku taamo sidii uu iligga u saari lahaa wax uusan lahayn, ama uu ku yeelan lahaa saami yaroo haddii si cadaalada wax loo qaybsado. bal suurayso ummadu wax u qaybinayo ruux hunguri wado, diyaarna aanu ahayn inuu hal mar qado. noloshii hore bulshadan waxay ahayd falsafad nololeed oo laga dheehan karo murtidii ay ka tageen awoowayaashood. ma rumaysna inay Soomaalidu ahaayeen jaahiliin madhan, dhax mooyeen wax kalena aqoon. waxay ka tageen ayaa tilmaam ugu filan waxay ahaayeen. xilliyada qaar waxaan la amakaagaa mahmahyadii ay ka tageen, oo in badan oo ka mid ah ay sheegaysay biseelkii jiray, sharaftii iyo milgihii qofka lagu baraarujin jiray, iyo heerka ay waaye aragnimadoodu gaadhsiisnayd. waxaa jiray sees karaamo oo ay waajib tahay in qofkii wax isku falaya uu dhowro. waxay dadku si guud u wada leeyihiin, haba yaraatee cidi si gaara uma qaadan jirin. waxay ahayd wax laga yaxyaxo. haddii la magaaloobay, noloshii dadkuna way isbeddeshay. qaabkii barbaarinta iyo xeerarkii gobonimaduna way isbeddeleen. dhogortii la dhowran jiray dan looma gelin. hadalkii meesha dheer gaari jiray wax xanuunna uu leeyahay, iyo in laga gubto toonna uma aanay hadhin. qofka la mudo inuu wax qaybiyo, wax ma qaadan jirin iyadoo ay qatan yihiin dadkii mas-uuliyaddooda la baday. soo ma aad maqlin qaybshaa wuu qadaa? waa falsafadii nololeed ay lahaayeen nafciga la wada leeyahay iyo xilka saaran mas-uulka. waxaad mahmaahdaa ka dheehan karaysaa wacyigoogu halka uu gaadhsiisnaa, iyo sida ay ka aaminsanaayeen qaabka ay tahay inuu dhaqmo qofka ay xilka u dhiibtaan. waa inuu qofku yahay ruux isagu xillisi saara, baahida dadka kalena ka horraysiiya middiisa. cadquureed iyo mid buuran toonnana aan isku qaawin karin ayaa la beegsan jiray. waxaa la xulan jiray qof ay ka suurtowdo inuu qodo halkii ay raciyadiisu gaajo la rafaadi lahayd. waxay aaminsanaayeen in xilku uu yahay daryeelka shacabka, iyo in si cadaalada loogu qaybiyo waxa la haysto. inkastoo xeerka ay wax ku qaybsanayeen uu ku xidhnaa duruufihii nololeed ay ku jireen, haddana in si xeerkaa khilaafsan waxay u kala qaataan waxay ahayd mid ay geeri ka xigaan. intii ay sharaftoodu dhiman lahayd, geeri ayaa kala qiimo badnayd. qiimaynta milgaha laftigeeda ayaa ka turjumaysa wacyiga bulshada, muujinaysana sida dhaqanka, xeerka iyo ilaalinta waxa la dhowraba u ahaayeen waajib bulsho oo ka horjeeda damaca dhaliya kalitaliska iyo sadbursiga. qofka hunguriga weyn ee wax deeqa aanay jirin wuxuu ahaa dhexdooda mid ceebaysan, bulshada nolol maalmeedkeedana aan saamayn ku lahayn. dadka maanta xeer iyo xishood xidhxidhaa ma jiro. barbaarintii shalay maanta ma jirto. isku furnaanta dunida iyo qalinmaalnimada laguma dheefin. cudurrada bulshada ku dhaca oo dhan jahliga iyo faqrigu ma keenaan, balse tarbiyad la'aanta iyo lumidda qiyamka nolosha ayaa dhaliya aafooyinka ugu badan. lama arag dad aqoon iyo xoolo badan haysta, balse ay waxoodu deeqi waayeen. wixii dadku lahaayeenna boob aan kala go' lahayn ku haya. haddii ay faqriga iyo jahligu yihiin kuwa dhaliya dib u dhaca,
musuqa iyo dulmiga ay kalkaalaan lama arkeen cid aqoon leh oo dembiyadaas geysata. xalku wuxuu ku jiraa in dhibta si dhaba loo daraasadeeyo, dawadeedana si rasmiya loo qoro. waa wax aan la dafiri karin in mushkiladaha bulshadu ay tarmeen, tirabeelna noqdeen, laakiin dhammaantood maaha asal. adigoo aan kala garanayn asalka iyo faraca wax ma daweyn kartid. qabiilka, musuqmaasuqa iyo dilku waa natiijo ma aha jiridda dhibaatada. haddii ay kula tahay in qabiilku yahay aafo, waad qaldan tahay. aadanuhu maalinkii uu tarmay ayuu qabiilku samaysmay, daruurina way ahayd. eeg, awowgaa maanta waa oday ay jifi ku habtirsato, adiguna kal dhow ayaad noqonaysaa sidaasoo kale. cidina kama fakan karto oo xaqiiqo buraysa maaha. muhiimadduse waa tarankaa waaraya inay isku aqoonsadaan. hal micno oo kaleo ka duwan ma lahan. haddii uu qabiilku yahay samaan, waa waxa ka dhasha dhaqanka aadanaha. haddii uu xumaato leeyahayna waa wax ka dhasha dhaqan xumidda aadanaha. maalinkii ay dadku noqdeen waraabayaasha ayuu qabiilkuna noqday shamaaga ay ku adeegtaan oo loogu wanqalay qabyaalad. damcu waa haleeyaha qabiilka, waa kan dooriye aadanaha shar soocanna uga dhiga astaan. haddii ay kula tahay in dhaqannada xunxun ay sidooda u jiraan, muuqaal gaarana leeyihiin, waa wax kaa maqan in dhaqan xumi walba uu damac u yahay shidaal, aadanuhuna u yahay weel iyo adeega isku jira. tusaale ahaan, si qabku wax u haleeyo waa inuu helaa sabab. sababtaas si kasta oo loo rogroga kama baxsana damaca oo ah quriwaa. qabku miyuu ka duwan yahay in qof isla weyn uu damac ka galo, in loo aqoonsado inuu ugu yaraan ka fadli badan yahay aynigii? tuhmidda uu ka qabo inaan loo aqoonsanayn ayaa ku filan inuu dunidoo dhan halaakeeyo, cid walbana hirdiyo. qabyaaladdu si ay u midho dhasho waa inuu samaysmaa qabay reeruhu sheegtaan, iyo quursi ay la beegsadaan jifi kale oo aanay kala fogeyn ama aadan isugu yimaadaan. aabbe 2 wiil dhalay oo midkood 10 wiila dhalay, kan kalena 2 wiila ifka uga tegay, ayaa aakhirkii lagu kala magacaabaa laandheer iyo laangaab. shalay labadooduba ilmo qansax ayay isla ahaayeen, maantana dhashooda ayaan kala guursan karin. kuugu filan middaasi daliil. qabka iyo quursigu waxay u samaysmaan u adeegidda damaca aadanaha ee aan lahayn xuduud uu ku dhammaado. hoggaanka, sharafta, maamuuska iyo wax kasta oo u dhex ah ayuu waraabaha tirada badani keligii isla rabaa, ama ugu yaraan cadow ka tegay mooye mid kale inaanay inta kale qaadan ayuu doonayaa. hungurigaasi waa waxa sidaa u hagaasiyey. dhurwaayaduna ay la dhiman la'yihiin. ilmo qansax 2 kursi ay heleen, ilmo kadleeye qansax ayaa isu raba. waxaanay aaminsan yihiin ilmo kadeedana qansax inaanay u qalmin lana qaybsan karin. laga yaabaa in iyaga oo aan raalli ka ahayn inay hal mid siin lahaayeen haddii ay 3 kursi saami u heli lahaayeen. qof waxaystaa wax bixiyee, qof aan ku sifoobin samaantii loo hamuun qabay yuu u horkici karaa hanashadeeda. yeelkadeeda anigu aad baan ugu faraxsanahay inay sidooda ahaadaan. waxaan kuugu sheegayaana waa in aysan jirin sir ka daahan, balse garashadii iyo geesinimadii ay igu dili lahaayeen ma laha. warwar kama qabo dhimasho, oo xataa haddii ay baraarugaan oo ay iga taqallusaan, waayo kadib ayay dib ii soo noolaynayaan. bilowgiiba anigii kuu sheegay in dhowrka qof ee marmari khaarijiyey ay xusaan ina nacdalaa. nacdashaasi cabsi iguma hayso oo eebbe ducada kama aqbalo duulaan daacad ka ahayn, duulaan daahir ahayn, duulaan sinaanta isu oggolayn. haddii uu cadligiisa marsiin lahaa, midig kama joogin oo cadaalad darradooda damcu dhaliyey darteed ayaa loo haligi lahaa.